dadka badh baa haddaad aragta laga weecdaa sharkiisa, dadka badhna waa lagu soo hirtaa meeshuu joogo. qofka mu'minka ah nebigu wuxuu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qofkaasi lagu soo hirto. waxaanu sheegay qofka dadka sharkiisa iyo dhibtiisa dadku ay uga cararaan inaanu khayr lahayn. dabeetana nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wakhayru nnaasi anfacuhum linnaas, dadka waxaa u khayr badan ka u nafciga badan ka u waxtar badan, dadka waxaa u khayr badan ka u waxtar badan. ee nebiga calayhi salaatu wasalaam baa mar kale isagoo jooga waxaa la keenay la sheegay nin dibqallooc qaniinay. markii dibqalloocu qaniinay ayaa nin yimo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo naga qoladayadu waxbaanu tufnaaye, dadkan dibqallooca wax lagu tufaanu naqaanaa ku akrinaaye, ma ku akhriyaa? bal soo bandhig buu yidhi, waxaanad akhridaan muxuu yahay? wixii buu sheegay. dabeetana wuxuu nebigu yidhi ba'si kuma jiro tanaad sheegtay, ee man istataaca minkum an yanfaca akhaah falyafcal. ciddii awoodda walaalkii inuu wax taro ha yeela buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ha taro. xadiidka saddexaad aan tilmaamaynaa wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi oo wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi ayu nnaasi axabu ila allah wa ayu alacmaali axabu ila allah. dadka yaa alla u jecel yahay, acmaashase maxaa ilaahay u jecel yahay? nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkanu xasan ligayri uu sheekh alalbani ku sheegayo, wuxuu nabigu yidhi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas. dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka ugu waxtar badan. acmaashana waxa loogu jecel yahay buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sururun tadkhiluha calaa muslim, qof muslima aad farxad geliso ka farxisid, takshif canhu kurba, dhib haysato aad ka faydid, aw taqdi canhu daynan, ama dayn lagu leeyo aad ka bixisid, aw tatruda canhu juucan, ama gaajo aad ka quudisid. wala an amshiya maca akhin fi xaajatin axabu ilaya min an actakifa fi hada almasjidi shahra. wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaan qof muslima si aan baahidiisa ula gudo raaco ayaan ka jecelahay masaajidkayga kan waa masjidu madiina inaan bil ku ictikaafo. waxaan ka doorbidayaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qof muslima baahidiisa inaan gudo. waman kadama gaydahu walow shaa an yumdiyahu amdaa mala'a allahu qalbahu yowma alqiyaamati ridaa. qofka cadhadiisa qarsada isagoo awoodi kara inuu guto guto, kaana ilaahay qalbigiisa maalinta qiyaame raalli ahaanshiyuu ka buuxiya. qofka walaalkii raaca ee xaajadiisa ilaa intuu uga gudayo raaca, isagana maalinta qiyaame ee aanay bini aadamku sugmi karaynin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala gommadiisa sugaa.